الله الرحمن الرحيم. قدوميها دقمدا هضن قدوميها دقمدا هلوا قدوميها سبورتيغا دقمدا هضن دمان مدحدا مامولكا يا شقالها بلا ميديا guud ahaan gaar ahaan qaybta wax soo saarka iyo qaybta isboortiga ayaa hurkacayo gudoomiye agaasime Dakos aad iyo aad marka hore u salaama dhamaan madaxda anoo ku hadlayo magaca isboortiga gobolka Banaadir marka hore waxaan u mahadcelinaa dhamaan mas'uuliyiinta Bila Media guud ahaan gaar ahaan qaybteeda isboortiga aan leeyahay in tartan wuxuu ahaa aad u qurux badan qiimo badan kana qayb galeen dhamaan shaqaalaha Bila Media guud ahaan waxaan aad ugu faraxsanahay galabta inaan goobjoog u ahaano gabagabadii tartankii Bila Media Cup isugu soo baxeen Bila Famous iyo Finance qaybta Bila Media waxaan leeyahay tartan aad u qurux badan oo ahaa gabagabadiisina aad u qurux badan waxaan daawanay ciyaar aad u fiican wanaagsan farsamo fiican leh waxaan u madcelinaa dhamaantii soo abaabushay soo agaasintay waqtiga galiyay waxaan kaloo madcelinaa dhamaan ciyaartooyda xulka qaranka meeshaan ku sugan iyo dhamaan taageerayaasha qurux badan oo labada koox kala taageerayeen iyo dhamaan garsoorkii ciyaarta ahaa inta waxaan leeyahay aad u salaamantiin mar kale waxaan marqaati ka nahay anoo ku hadlayo magaca isboortiga gobolka Banaadir inaan ku faraxsanahay galabteena goobjoog u ahaano dhamaan guud ahaan maamulka media Bila Cup waan madcelinayna السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله marka ugu horeyso waxaan salaamayaa gudoomiyaha martida nooca oo nooga yimid Helwa iyo gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha isboortiga kubadda cagta ee gobolka Banaadir iyo marti sharafka ciyaar bile halkaan noogu timid mas'uuliyiinta Dakos waa ku mahadsan yahay in muddo sport isla soo wadnay 1900 waxaan 2021 ayaan waxaan isla soo wadnay tartan xiiso leh hataa 2021 yaan lii qaban hadalku waa la gafi karaa marka aad iyo aad aan Dakos ugu mahadcelinayaa sababtoo ah waa nin isboortiga dalka qayb weyn ka qaatay baahinta qayb weyn ka qaatay raali naga ahaada Dakos aan u mahadcelino sacab fiican aan tunno maadaama uu yahay nin isboorti qiimo kuma leh oo dalkana markan oo u soo shaqeeyay Goal FM 2011 ayaan tartan iskula qabanay degmada Hodan iskool Hodan marka maadaama markan maanta tartankan ciyaar bile oo muddo dhowr isbuuc socday waxaan kala qayb galay maalin walba waa imaan jiray marka waxaan leenahay tartanka si wanaagsan oo habsami ah u socday oo noogu dhamaaday haddana waxaan dhihi karaa ciyaartooy fiican ku jirto oo xulka qaranka Soomaaliya ka qayb gali karto marka meeshan waxba ka soo baxay waan aragnay aniguna waxaan jecelahay dad degmada Hodan u dheelay inaan ka soo dhax saarto naftirkeyga waa mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh